dowladda Mareykanka ayaa Suudaan ka saartay liiska madow ee dalalka taageera argagixisada waxayna ku dhawaaqday isbedel weyn oo ku yimid xiriirka kala dhaxeeya dalkaasi 2 bilood kadib markii dalkaas Carbeed uu xiriir la sameystay Israel. Tallaabadan ayaa albaabada u furaysa gargaar deynta laga caafiyay waliba maalgelin uu helo dalka Suudaan oo hadda ku jira xaalad kala guur siyaasadeed iyo waliba dhaqaale xumo ay ugu sii dartay cudurka COVID-19. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii Oktoobar ku dhawaaqay inuu Suudaan ka saarayo liiska dalalka taageera argagixisada 27 sano kadib markii Washington ay ugu dartay in ay gabaad siiso mintidiinta Islaamiga. Safaaradda Mareykanka ee Khartoum ayaa Isniintii sheegtay in tallaabadan rasmi laga dhigay isla markaana xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa xaqiijiyay in ku calaamadeynta Suudaan ee dal taageera argagixisada si rasmi ah looga laabtay. Tani waxay muujinaysaa isbedel weyn oo ku yimid xiriirka aan wadaagno iyo waliba u dhaqaaqida wada shaqeyn iyo taageerada isbedelka dimuqraadiga ah ee Suudaan, ayuu Pompeo ku yiri bayaan uu soo saaray.